kula tilaa waxa weeyaan yow ciidan baa inaga xidhan kowdhe qaranka dad soo dagaalamay kuwaasaan oran lahaa horta marka hore soo daa tame kira dhaqabeeda u yeeshay ummadii hadii ilaahay badan waxa leeyahay haddaad seexato oo reeriyo waxa dhow ku meeraysato reer kuma soo saarnay qarab ma soo saaray kulan waxaan wanaagsan saaxiib ku soo dhawaada barnaamijkeena rayga dadweynaha waxaan maanta su'aalaheena weydiin doonaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa haatan waxaan ku suganay bartamaha magaalada Hargeysa bal su'aalahaas ay u fikir dhiibtaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo daawasho wacan inta waxaan ku suganay wala burda miiriyo su'aasha waxa qoranaysa hadii lagu dhaw madaxweynaha cusub ee doornay hal talo si maxay talada ugu muhiimsan siin lahayd horta anoo ka faa'iideysanaya aad baan ugu hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cigaal Cirro iyo hoggaanka xisbiga wadaniga ugu horeeyay Xirsaale Xajaasan madaxweynaha talada maanta si la wax noqonaysa kulay dhalinyaradii isbedelka oo cadeysay isbedelka boobeysay baan nahay talada koobaad maanta si la waxay tahay wax ka wanaagsanaan ay jirin isku haynta dadka iyo midnimada shacabka Soomaaliland la mideeyo taasoo waxa odaygii hore magaalada odaygii hore dalka waxa dhaafiyay madaxweyne ka shaqeey inuu ka shaqeeyo madaxweynuhu ma garanaysaa isku haynta dadka talada labaadna siinay waxay tahay xulashada maanta saraakiisha u sareysa ee dawladdiisu xulanaya waxay noqonaysaa saameyn ku yeelan doonto dalka iyo isagaba taasoo hadhow hadduu isagu doono mar labaad inuu soo istaago amaba xisbigu hami kale ka yeesho hogaaminta dalkan noqonaysa in laga eego lagu tamariyo marka waxaan odhan lahaa madaxweyne xulashadaada ha noqoto xulashadaad ku xulanayso position walba qof aqoon u leh qof position ka garashadiisa leh talabaadan odhanaya u weynaan badana bulshahaan hadaan nahay ma garanaysaa shacabka Soomaaliland ku dooranayna waa isku hayn dade inuu dalka iyo dadkaba isku hayo oo bariga galbeed la sinaado Soomaaliland Hargeysa Burca sinaato laascaanood iyo Boorama sinaato gobolada maqan ee Soomaaliland ka midka colaadu hareeyeen saddexda gobol ee bariga colaadu ka jiraan inuu colaadaha gobolada bariga odaynimo iyo waayeelnimo aanu awood adeegsanay odaynimo iyo waayeelnimo uu gobolada bariga colaadooda ku soo xaliyo inta saan ka rajeeynaa insha Allah taala Faisal Yare Faisal Yare barnaamijkan ku soo dhaweynaa Faisal oo waxa qoranaysa hadii lagu dhaw madaxweynaha cusub ee doornay hal taasi maxay talada ugu muhiimsan siin lahayd waxa oraa talada ugu muhiimsan si aan siin lahaa marka hore saddexdii xisbi qaran nin u baahay kursiga Cabdiraxmaan Cirro haduu kursiga helay marka hore waa hambalyeynayna kowdi marka labaad dalka iyo dadka iyo dawladda iyo dalka iyo dadka waa si wanaagsan aad u maamusha waa cadawga inaanu nagu wirsanin waa dalka difaacda waa dalka difaacda ya qadar burda miiriyo ku soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinay qoranaysa hadii lagu dhaw madaxweynaha cusub ee Soomaaliland doortay madaxweyne Cabdiraxmaan hal talo u reeb ama la tali maxay taladaas siin lahayd waxa siin lahaa qaadka jooji baan oran lahaa haye madaxweynaha qaadka jooji baan oran lahaa dad isnacabi ma jiro qoys iskala tagay ma jiro faqri ma jiro akhlaaq xumo ma jirto qaadkana ugu wacan marka qaadka amba xakamee oo waqti u samee amba jooji baan oran lahaa qodobka kale oran lahaana waxa weeye isbitaalka guud ee Hargeysa waa bareefad weeyaan ma isbitaalku marka kiniinki baa lagu iibinaya qofkii emergency lagu leeyahay dawadiyo dirta mooyaan waxba la qaban maayo marka halkaana free ka dhig waxbarashada free ka dhig biyaha free ka dhig hadii ilaahay badaka 30 sano baynu cashuurta qaadaynaa dadku waxba ku soo noqonayno taanki lagu dhaaminaya iyo dameer qadiye bal isbedelka sameeyo waxbarashada bilaash nooga dhig oo hadii ilaahay badaka dadka dib u dajin waxbarashada bilaash ka dhig adeega bulshada society iyo maxaa ku raayay bulshada ay ku nooshahay adeega bilaash nooga dhig baa oran lahaa ciidamadana u kordhi baan oran lahaa ballantii aad qaaday oof muusana waanu habalinayaa madaxweynaha dalka iyo dadku badbaadiya waxaan leeyahay madaxweyne taariikhda ku qoraysa taariikh wanaagsan iyo ilaa sana baad ka soo gashay marka intaasaan waanu ducaynayaa ilaahay Khalid Baradon Dewi Khalid barnaamijkan ku soo dhaweynaya su'aasha waxa qoranaysa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland doortay hal taas iyo dad u dhaxasin lahayd doorta madaxweynaha cusub soo dhaweynaa garanaysa deewalaal wax ordo qabiyo badan u jiraan oo laga tagay marka waxaan rajeynayaa in waxyaabihii badnaa oo dhameystiray qabiyadaha ya farxad noogu noolaado annaguna farxad ku noolaanade ya marka waxaan leenahay waxyaabihii qabiyadaha madaxweynaha qabiyada
madaxweynaha cusub Soomaaliland dooratay Mudane Cabdiraxmaan Ciro hadii lagu dhaho hal tala si maxaa kula tan lahayd waxaan kula talin lahaa madaxweynaha aad buu salaamay TV aad buu salaamaya madaxweynuhu balmayaal badan buu qaaday oo kamid ah doorashada hadii aan soo baxo 2 sano anna ku darsan maayo buu mid dambe ku darsan maayo ya balamaha lagu ka doonaa waa ka iyo macnaheedu balamo badan buu qaaday oo hadda aan meesha ku soo koobi karin waxa kamid ah wili wadooyinka aad baan u dhisaya Soomaaliland oo mideynaya marka intaas oo dhama looga fadhiyaa walaal isxaaq siida baxsan baa dhaha isdooni walaal burdha midhiyo su'aasha qoransa madaxweynaha cusub Soomaaliland dooratay hadii lagu dhaho hal talo u raad maxaa kula tan lahayd waxaan kula tan lahaa horta dhammaan TV-ga iyo idinka waan salaamaya waxaan kula tan lahaa madaxweynuhu balamo badan buu qaaday oo waxa kamid ah inuu dhalinyarada shaqo abuur sameeyo marka waxaan kula tan lahaa balantii lahaa dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo subaran yaanu balanta inuu sameeyo oo macnaheedu dhalinyarada bala shaqo ma aha meel kasta ay joogaan ba aan lahaa balanka inaan ka noqon dhalinyarada shaqo abuur shaqo abuurkii Sahal Cabdiraxmaan Sahal walaal burdha midhiyo ku soo dhaweynaya su'aashan waxay qoranaysaa madaxweynaha cusub Soomaaliland dooratay Cabdiraxmaan Ciro hadii lagu dhaho hal tala u raad ma la tali maxaa kula tan lahayd lababo sixir bararku wadanka ku jirana wala arkayaaye kaan waxa la oranaa yar jibi waana ku salaaminaa baan leenahay madaxweyne khadar baa waxaan ku soo dhaweynaya burdha midhiyo su'aasha waxay qoranaysaa madaxweynaha cusub Soomaaliland dooratay Mudane Cabdiraxmaan Ciro hadii lagu dhaho hal tala si maxaa kula tan lahayd waxaan ku tan lahaa madaxweyne lacagta noo hayban ku dhanaawe oo wala cunanaawe hayaan noo xajiyo lacagta noo hay waxay siin meynaba waa wala xajinina soo dhawaal magacaaga magacaygu soo weyn sii walaal su'aasha waxay qoranaysaa madaxweynaha cusub Soomaaliland dooratay Mudane Cabdiraxmaan Ciro hadii lagu dhaho hal tala u raad ama la tali maxay tahay taladaas siin lahayd wallahi waxaan kula talin lahaa inuu wadanka cadaalad ku maamulo wixii magaranaysaa wixii qarankeena lidku aan aynu ka dayo oo daafaco taas muu soo jeedinayaa magacayga Cabdisamed Asad Xuseen baa la yiraahdaa sidoo kale burdha midhiyo ku soo dhaweynaya su'aal baan ku weydiinay qoranaysaa madaxweynaha cusub Soomaaliland dooratay Cabdiraxmaan Ciro hadii lagu dhaho hal tala u raad maxaa kula tan lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim walaal horta waxaan maxay ahayd tooyin aan u talin lahaa kula talin lahaa madaxweynaha cusub Soomaaliland dooratay macnaheedu inuu horta isbedel weyn ku sameeyo Soomaaliland maxay ahayd tooy waxyaabaha imaka ay magaranaysa baahiyaha asaasiga ah oo kale sida maxay ahayd tooy waxbarashada oo kale caafimaadka oo kale biyaha oo kale inuu maxay tahay waxyaabaha baahiyaha asaasiga ah inuu horumariyo uma kula talin la ma garat markaas ma walaal kula talin madaxweynaha cusub su'aasha weydiinaya hadii lagu dhaho Cabdiraxmaan Ciro la tali maxaa kula tan lahayd waxaan kula talin lahaa in badan baan dhaxiijisay bal ninkii Muuse Biixi wax weeyaan bal ka dheereeyo yaa wuxuu qabtay wax ka sii badan bal loo qabo war kuma dhaqana marka burdha midhiyo aad baan salaamaya iyo hablaha ka shaqaynayaba dhammaan ummadda Soomaaliland aad baan salaamaya iyo ummadda islaamkaba madaxweynaha waxaan kula talin lahaa anigu cadaalad baa dadka deeqda oo cadaaladda Ilaahay baa jecel Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaaladda isaga jecel ummadana cadaalad baa jecel san madaxweynaha waxaan kula talin lahaa kursiga marka tagto dadka madaxweynaha u tahay ha kala xigsiisan ummadana si fiican oo cadaalad u dhaq anigu intaas ma kula talin lahaa madaxweynaha Muuse waxaan oran lahaa waad mahadsantahay madaxweyne inta soo qabatay iyo in ka badan baa oday qaran baatay waa lagaaga fadhiyaa dhammaan shacabka waxaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo nuur sacdaan kusroonay burdha midhiyo su'aasha waxay qoranaysaa madaxweynaha cusub ee doornay hadii lagu dhaho hal tala si maxaa kula tan lahayd waxaan kula tan lahaa hadii laga tala si waxaan kula tan lahaa midnimada ummadda iyo wadanka iyo xuduudihiisa laga rabo oo sugan waxaan kula tan lahaa cidda mas'uuliyadda ehel ah inuu dhiibo si ummaduna ay hoggaan iyo leadership higsiga doonaysa u gaadho marka deesana waxa laga rabaa maadaama maanta majiiraha ummadda loo dhiibay wadankii Soomaaliland oo dhan iminka la qayb maqane wadankii Soomaaliland oo dhan xuduudihiisa iyo halkii uu goboladiisa wada dhan ummadii oo dhan midaysan dadka ummadda kale qof walba raaci baan Maxamed Salaax Rasuul cidda ummadda hogaaminaysana waa inay cid tahay mas'uuliyadda ehelka waa talabaadan kula tan lana waxa weeye inuu cadaalad ogaado dad islaamkana diintooda iyo sharaftooda inuu ilaaliyo dadka reer Soomaaliland marka anigu taladaasaan siin lahaa waxaan kale u soo jeedin lahaa kulley hawlo badan baa jira wixii hor yaalana qaabkaad u gelayso kulleyna dad kala tashato maadaama dad baa xiran waxyaalo badan baa jira dhaawac badan Soomaaliland soo gaaray qaabkii loo xalin lahaa inuu taladeeda la yimaado ummaduna wixii qalloocsamana
oo dad kala tasho si loo toosiyo deyntaasaan kula talinay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan walaal odhan lahaa dee madaxweynuhu inuu doorto dad macquula oo miisaan leh oo aqoon leh oo mataqaanaa wax soo kordhin karayo oo hawsha loo diray qaban karayo oo aan malayacni ahayna dee muhiim oo mas-uula oo waayo araga oo haw soo jiro oo miisaan leh oo mataqaanaa wax xallin karayo oo hadday mataqaanaa dee xagga boorama tahaya hadday xagga laascanoo tahayba wax ka tari karayo oo wax ka xallin karaya ayaan kula talin lahaayoo mataqaanaa dee wad dadka isku keeno oo dadka mideeyo oo mataqaanaa horumarka ka shaqeeyo oo dadka mataqaanaa camalaan badan baa hayso oo wax badan baa jire wax xallin karayo wax soo kordhin karayo shaqo abuur samayn karayo dadka midayn karayo dadka mataqaanaa inaan mataqaanaa raalli gelinin oo xusbi la raalli gelinin oo urur raalli gelinin oo gobol la raalli gelin ee uu madaxweynuhu Soomaaliland raalli geliyo oo mataqaanaa dad mataqaanaa Soomaaliland wax ku kordhinayo oo anfacayo oo aamino oo mas'uula oo mataqaanaa xilka u dhiibo magacaygu Cabdirasaaq Qolo saashan boodin yahay qoraansa madaxweynaha cusub Soomaaliland doortay hadii lagu dhaho talada ugu muhiimsan Cabdiraxmaan uu reeblay waxay noqonaysaa anigu hal tala hadaan siin lahaa madaxweynaha waxaan lahaa horta odayaasha dhaqanka la shaqeeya sababta odayaasha dhaqanku maanta marka saa u eegto dalkeena awoodda kumadiga maanta gacanta ku haya ya haday ka hor imaadaan iyaguna sidii madaxweyne Muuse u dhacay wada doontaa hadii aad iyaga la shaqeyso mar walba maxaa dhacay arrinka aad hortiga la wadaagtana waxaan kuleeyahay waa talin doontaa hadii aad ka soo horjeedna waa dhici doontaa marka aan wax kuleeyahay madaxda dhaqanka ugu baan kuleeyahay ya walaal mahadsantii waan kugu hambalyeynaya xilka cusub ee lagu doortay umada ku doortay